iyada oo iga dhaqaaqday oo qosol iyo kaftan isu kay raacinaysa ayay igu tiri Xaydarow geedka hoostiisa ha soo dhaafin oo inta aad huruddo bannaanka ha u soo galgalan is ilaalinayo. ladan markay saanta iga rogtay oo aan aragtideeda qurxoon sii jeedaalinayo ayaan is arkay aniga oo seerihii ka gudbay oo geedka bannaanka uga baxay. tooskii murugada intay iga degtay ayaan nafteyda guul ugu bishaareeyey. guurkani wuu hirgalay ayaan niyadda iska iri. intaas ha jirtee mar walbaa waxaa maankaygu hoganayay weedhii arsame ee ahayd in ladan darteed ay rag badan u dhiman doonaan. arrintaasi waxba uma dhimin jacaylkii aan ladan u hayay. kollay haddii aara la dilay waxaa ku xiga haybe iyo danan, sidaas bayna tiradii duraantaydu ku buuxsamaysaa. waxaas baan nafteyda u sheegaa. warkaas oo gayi ku faafay ayaa haddana ladan waxaa soo doonay odayaal badan oo ka mid ahaa guurtida beesha. waxaase lagu sasabi jiray welima qaangaarin iyo gabadha xoog ugama maarmo ee mar kale u soo noqda iyo wixii lamida. wax aanu eebba qorin qiil looma waayo ee oday gahiir la yidhaahdo oo laba xaasle ah ayaa ku qanci waayay arrimaha ugaasku qiilka ka dhiganayo. markaas buu iska soo hormariyey 100 halaad oo gabaati ah iyo hantimood ah. maxaad ka filaysaa waxa uu yarad ahaan u bixin doono? ninkaas geela badan bixiyey iyo 100 kale ee ladan jeclaan jirayba aniga ayaa ka rajo qurxoon. rayn iyo qanacsanaan baan geedka hoostiisa ku alla baryaya. siday ahaataba aniga oo nolol aan la gaarin u sii gogol xaaraya ayay ladan geedka ii soo xuluulatay. qosol badana waxay harowga ka qaaday dhiil ay hilib iyo raashin iskula jiraan. xeel badnidaa gacalisoy ayaan iri. si qosol baan ka filayay ee oohin bay la hundursatay. yaa badana naaheedhi maxaa dhacay ayaan weydiiyey. waxay tiri nin ayaa caawa ka yimid dhulkii Mariixan. markay sidaas dhahday ayaan gartay inuu cidda u yimid wardheere oo sida fariintii uu baynax soo faray. ladan baa warkii sii wadatay. Xaydarow ninku wiilashii uu aara dhalay ayuu xog ka keenay. waxaana la soo hadal qaaday in wiil adiga loo malaynayo uu carriga soo galay. walaal halis baad ku jirtaa ee Ilaahay habeen dambe hana gaarsiiyo. waa yaabe yaa i sheegay oo aan is aragnay. waxaan maqli jiray 3 qof sir way qarin karaan, waase haddii 2 dhimato. aniga xogtayda waxaa haya ladan uun. taasina tuhun bay i gelisay oo waxaan is iri armay gabadhu ku hoosaasinaysaa. intaan geesaha dhugtay oo afka hadba dhan u maroojiyey ayaan ku iri oo maxay sidaas ugu maleeyeen? ladan wallaahi ma ogi. waxaase laysku raacay in berri carriga la xulo. aniga arma adiga lagu warsaday? ladan maya. aniga ugaasku muxuu ka yidhi? ladan isaga hadalka waa laga qarinayay. aniga oo maxaa dhacay? ladan dee raalli kama noqonayo xumaanta ay falkinayaan. aniga war iyo dhammaantiis madasheen waa habeen dambe. ladan docdaan u bixi doonaa. aniga dhulkaas galbeedka ah ayaan u bixi oo beerahaas oromada ayaan dhex mari doonaa. halkaas baan ka gelaynaa dhulka karanle oo reer abtigay ah. waan huba oo kor bay ii qaadayaane adigu habeen dambe diyaar noqo. ladan waa tahay gacalii adigaa go'aanka leh. markay sidaas tiri ayay haddana inta madaxa gacanta iga salaxday ii raacisay. berri aroor ayaan kuu imanayaa ee soo bari. weligay korkeeda waxaan taabtay shalay oo aan salaamay iyaduna ay si dhib leh iga qaaday. kolkay madaxa gacanta iga marisayna waxaa laabtayda buuxiye kalgacal iyo dareen ka tanbadiyey. sidaas bay iga dhaqaaqday. saqda dhex ee habeennimo ayaan la soo toosay kaar lugtu ila dikaamayso. inuu masi qaniinay ayaan u gartay. markaas baan meeshii xanuuntay korkeeda mara ku xiray. geedkiina dibadda uga soo booday. xanuunkii wuu ugu sii kordhay. waxaana miyir iigu dambaysay aniga oo midi ku xariiray halkii masku iga cunay oo uu dhiig yari ka tifqayo. wakhti dheer oo aanan ogayn baa i dhaafay. waxaanan soo miiraabay aniga oo meel bannaan ay cadceeddu i diirinayso. dhinacyada ayaan eegay mise waaba dharaar cad. lugtii way baraban tahay. dibnaha iyo indhahana culays baa iga saaran.
waxaan damcay in aan geedka u gurguurto laakiin xubnaha ayaad moodaa in ay dhulka ku mudan yihiin oo aan dhaqaajin karin waaye waxaanse nafta u yaabay markaan ogaaday in codku iga xirmay oo aanan dhawaaq karin juuqna waan gabay dhaqaaqna waan tahli waaye amin niyadda iga xumaatay oo aan indhaha guluc ka siinayo ayay ladan gadaashayda ka balanbashay allow yaa afka qabta war maxaa ku helay iyadoo boga garaacayso ayay sidaas tiri markaas ayaan farta ugu fiiqay lugta layga qaniinay intaas dabadeed ayay iyada oo ilmadu ka da'ayso garbaha iga gasho oo si dhib leh geedka igu jiitay ladan waa gabar dhuuban aniguna aad ayaan u laf weynahay sidaas daraaddeed markay wax yar ihimlisaba intay istaagto ayay sanbabada muggood neefsataa siday ii qaadaa dhigaysay ayaan mar kale siriray oo xiskii iga tagay goor dambe ayaan haddana ku soo kacay iyada oo igu kor ooyeysa intaan garabka ka qabtay ayaan ku odhi oradoo ciddaada u sheeg in aan meeshan al warkaasu dhagaheeda ma gaarin dibnahaygana ma dhaafin walow aan dhowr mar ku celceliyey sidaas baa qayr ku jiray intay iga tagtay ayay iila soo noqotay qoray dab ah maxay samayn doontaa waxay ku qabatay meeshii nabarku ku yiil ilaa aan isri way bislaatay haddana intay gacanta madax hoostiisa ii gelisay qoortana kor iigu soo qaaday ayay harow biyo ah igu habtay hooyadeed ayaa geeda yaqaan ahayd ee markaan biyihii cabbay ayay maradeeda meel uga gunuday caleen gubtaanyo caleen gabagabo iyo xidid mardaf ah oo intay dhagax ku garaacday kolkay jilceen afka ii gelisay ladan waxay maantay baylahda uga hartay arigii reerka waana hubaal oo waxay u malaynayaan in ay la fakatay inaan gumeedkii la yidhi carriga ayuu dhuumasho ku joogaa siday ahaataba goor galab ah ayuu xanuunkii iga dabcay hadalkiina ii furmay ereygii ugu horreeyeyba waxaan weydiiyey maadaamay arigii dayacday waxa ay caawa sheegi doonto xaydarow ma ogi bay iigu afnaqday imaqal ayaan ku idhi waxaad ku dhahdaa saaka ayaan xanuunsaday dabadeedna waan suuxay oo ilaa maanta waxaan jiifay meeshii waan yeelayaa gacalii waxaanse kula joogayaa inta gabalku dhahayo markay erayadaasu afkeeda soo dhaafeen ayaan ku farxay ramashada kalgacal ee ay igu wehelinayso sida ay ila dadaasha awgeed aniga oo wacad uguntayo ayaan ku idhi ladanay abaalkaaga waan gudi haddii aanan dhiman iyana intay foolkeeda ilqabadka lahaa iyo indhaheedii kuulnaa igu beegtay ayay si hoose ugu buranburtay war haddaan durugno oo xaydarow kula dalgalo haddaan dagallada direed dibadda uga baxo haddaan kula dago halkaad dayateed rabtaba dardaarankii aabbahay haddaan dadab u qubo war hadday duleed hooyaday dugayay tiraah kol haddaan dayooba ee aan dib ugu noqon karayn daroorigu waa xun yahay haddii laygu digan dartaa aafadan u gala dugsima iga noqon armaad dul u heli hadhow diracnimo rageed wixii ila soo darsiyey wixii dow i bado kolkaan dalanbaabi ahay armaan diihalyoon miyaa dabac ii ahaan oo daadahdaa idhihi intaan dalandoolin intaan duleedyada u bixin war maxaad igu diirin oo maxaad igu dugsiin aad baan ugu farxay in aan ogaado walwalka laabteeda ku duugan maansadu waxay si dadban ii hawaala tusaysaa waayahan nagu soo aadani haddii ay xumaadaan sidii aan ka yeeli lahaa waxaa la yidhi dhaqanka dadka waxaa maamulo xilliga haddii xilligu yahay mid awood la yeeshay dadku waa abadar haddii uu yahay mid la tabar yareeyeyna waa hariif haddii xilligu qallafsan yahayna dadku waa inay qallafsanaadaan sidaas darteed ladan waxay iska yoolbaari sidaan ula dhaqmi doono kolka ay reerkeeda ka fogaato waxaan ku idhi ladanay xullad baan kuu qaadayaa in aan dhib kasta gabaadkaaga noqon doono ladan waan kugu kalsoonaanayaa laba isjecel hadalkama idlaado ee annaga oo isku faraxsan sheekadun ay sidii oday iyo ooridiis talantaali noo tahay ayaan aragnay arigii reerka oo geesaheenna hagaagaya waxaa quminaya islaantii eeddadeed ahayd tolow xaggee ayay ka heshay xoolaha saakay duurka lagu ambiyey talo iyo dardaaran kadib markaan isdhahnay arigii aqalku wuu gaaray ayay ladan iga tagtay halkaas baan falaad kalinimo iyo waxaan ka bilaaba nuuxnuuxsi
anfayadayda ku hubinayo. Waxaan dhugtay meeshii ladan iga gubtay, mise xaaddii lugta iyo maqaarkii ayaa isku gamaaray oo dhuxul madow ah. jeer aan sidaas hadba ogadayda meel ka eegayo ayuu gabalkii madoobaaday. durbana waxaa ii muuqday cirqayaxan iyo xidigo quruux ah. intaan geedka hoostiisa ka soo xamaartay ayaan si fiican u fiiriyey xidigaha. dayaxa gardhaladka ah ayaa fadhiya godkii dallaalidda. xidiga garbo ayuu caawa la jaalay, waana kii aan ku dhashay. sida aniga oo kale, wiilka garbo ku dhashay waxaa la rumaysan yahay inuu yahay geesi iyo abgaal hoodo badan. ilaa haatan beelaha qaarkood ma duugaan ninka caynkaas ah ee meydkiisa ayay geed dheer guradiisa u raaraan. halkaas bay uga sameeyaan shacshac adag oo korka looga daboolay maqaarka qaalin lo'aad oo aan weli curan. marmarna waxaa intaas loo raaciyaa geesa ari. waa sida aan ku taamayo in aniga lay dhowro geeridayda dabadeed. ladan xidiga ay ku dhalatay waa godan, ayaankiisana lama jecla. waxaase la rumaysan yahay qofka godan dhashay inuu ayaankiisa ku hagaagi karo oo keliya inuu guursado qof uu xidigiisu yahay garbo, naafcaddi ama bayaxow. nafteedu way og tahay taas. goor aan sidaas xidiga ugu fooganahay ayaan maqlay shanqar soo dhowaatay. markaas baan sidii caadada ii ahayd geedka ku hoos xaluushay. waaba ladan oo iyada oo gurguuranaysa geedka soo gashay. dheel yar ayay suba ku wadaa, weel kalena waxay ku sidaa soor. xaydarow, xanuunkii ka waran ayay igu salaantay. markaas baan ugu warceliyey ladanay waan ladanahay. isu ekaashaha labada oraahood ee dhabta iyo dhayalkaba ah intay ku qososhay ayay haddana ii soo dhowaatay. subagii iyo soortii ayay isku iidaanta, waxayna bilowday inay afka igu gurto. aniguna intaan xishoodo ayaan ku idhi, fandhaalku waan tahli karaa ee ii dhiib. ladan maska ku qaniinay shalay ayaan raad raacay. wuxuu noqda mascado yar oo aan weli xoobsiiban. aniga wallaahi nafta ayaan u baqay oo waxaanba islahay good ama goodaadda midkood baa ku cunay. ladan walaalo waxayba ila tahay in ciddu shaki weyn qabto. markaa taagsi bilowdaba waxaan ku baxsan faraska adeerkay, aqalka afaafkiisa ayuu daaqsadaa, anigana meesha kugu keenaya. aniga hadday sidaas tahay caawa keen, waan baxaynaaye. ladan caawa adeerkay baa la dhaxay ee waa habeen dambe. aniga waa yahay, haddiise lagu arko adigoo faraska hogaaminayo maxaad sheegi? ladan waxaan dhihi, fardafuulka ayaan jeclahay, maalintiina waan ka xishoodaa. haddana waxaan u wataa inaan la tago meel cidlo ah oo aan ku badro. aniga ahaha, wallaahi been qurux badan ayaad sheegtay. ladan baxsanow qosolkaagu leyl bariiso miyaa, oo intay barsareedo ubaxoo boqolaal ah isku soo bififaysay, sanka kuu bikishaa u qaboojin oga. markii qosolkaygii gaabnay u haystay ayaan aniguna qosolkeedii dhoola caddaynta ahaa ka geeraara oo idhi, bilanay qosolkaagu ma barwaaqa hagaagtiyo, balligoo afka haayiyo xareed soo burqanaysaa. gugu waa kalbogsiiye, ma baraaha ogbaadee, sanka kuu bikilaa bog qaboojin oga. ladan malaha qosolka laabtaa hibanaysay, aniga hubaal baan u hayaa taas. ladan xaydarow qosolkaaga ayaan jeclahay, waxaan rabi lahaa inaan dhegaysto uun haddii aan ka dhargayo. markay sidaas tidhi ayay haddana qosol yar raacisay. waa qosol aan u gartay inay ula jeedo heesta ii wad. mar labaad ayaan ugu codeeyey heestii hore la xiriirta, waxaana idhi, bilanay qosolkaagu ma bidhaantii laacdiyo, gabalkii bogxeedba, sagalkii boqranaa iyo ma daruuraha buuxee qorax baalka ku haaya, bay madowga ciraad iyo ma bakaalka gaddiisiyo waasan oo baryaya, biroolaha fiidshiyo garboodoo biyo hoortiyo ma butaaca ganaana, bayaxowga xagaagiyo gabadhan u busayliyo ma bishoo dirir joogta, ma bakaalka ubbaado baylantii darar joogto, barqadii dandangiigta. anoo baylahda joogo bartaan cagta saaray, naceel iiga baqaa. bagaan heesahayaaye, bilanay qosolkaadu wuu ibaahi tiraaye, bu qaboojin ogaa. habeenkaas
in badan ayaan ka wada hadalnay noloshan lagu soo fool leh. Waxaan qaadaa dhignay dowga aan mari doonno iyo xeesha aan adeegsan doonno. hankii adduunyada loo qabay ayaan sii dhex mulaaqnay oo waxaan hirsannay guriga aan ku dhaqmi doonno, geela aan maali doonno, gammaanta iyo guunyada aan coodan doonno, geyiga aan degi doonno, iyo sida uu guurkeennu u dhici doono intaba soo jeed riyadiisu inay rumowdo u dhow. shin ay leyrtii caafimaadku ay marayso oon raynrayn iyo niirsami la ilka caddaynayo ay ladan iga tagtay. waxaan isi sii waydaarsannay badbaado allah iyo ballanteen waa berri. aniga oo weli barteeda jiifa, goortuna ay barqa tahay ayaan arkay wiil yar oo geedka baashiisa iga soo fiirinaya. waan u yeeray, misena wuu cararay. haddana waxaa igu soo laabtay isagii iyo 3 wiil oo kale. waan u yeeray, balse iima imaan, ee iyagoo cabsanaya gadaalna u jibbaday ayay igu yidhaahdeen maxaad ahayd. waxaan weydiiyey waxa ay malaynayaan. markaasuu kii u weynaa la soo booday, midhaa dadqalkii la sheegayay baa tahay. waxaan weydiiyey inay weligood maqleen nabi qadar iyo in kale. haa bay yidhaahdeen iyaga oo weli dhaygaagsan. markaas baan haddana u sheegay in aan nabi qadar ahay, waayo ciddan ayaan aqoon fiican u leeyahay oo nabigaas ayay aad uga sheekeeyaan. waxay rumaysan yihiin inuu nabigaasu nool yahay. marmarka qaar ayuu isu ekaysiiyaa sabool arradan, kolkaas ayuu qofkii wax siiyo ku yidhaahdaa waxaan ahay nabi qadar, ee waxaad doonta i weydiiso waan ku siinayaa. dabadeedna qofkaasi wixii u hamiyo ayuu gacanta u saaraa. taas oo jirto ayaan haddana ogaa suufi adeerkood ah oo la yidhaah sheekh faarax awsame inuu la kulmay nabi qadar. suufigan weligay hadalkama runsan oo mucjisooyin la tusay oo madax daaris ah ayuu dadka ku wareerin jiray. aniga iyo adeer aare bulxan uunbaa ogayn cilmigiisa qarsoodiga ah. marka laga reebo qur'aanka uu si fiican u yaqaan, wuxuu ku xeeldheeryahay xidigiska, faalka, sixirka iyo saadaasha hawada. isaga oo falaanfulkaas kaashanaya ayuu beri ku hanjabay haddii aanan xoolo loo coodin inuu di'i doono roob daadadkiisa lagu maashoobo. malaha hawada ayuu saadaaliyey, ee maalintii uu sidaas ku hanjabay ayaa 3 maalin kadib waxaa bilowday roob xooggan oo 2 maalin da'ayay si aan hakad lahayn. daadad baa soo rogmaday, dad iyo dunyana dhib weyn baa la mutay. aqoon-yaridu waa waalida barkeed ee dadkiibaa ku yaacay aqalka sheekh faarax, kana codsaday inuu alla ka baryo roobka oo joogsada. xoolana way u yabooheen. markaas buu inta gacmaha kor u taagay yidhi, allow tolkii way raaligeliyeen ee roobka ka fayd. amarkii eebba laguma diimo ee habeenkii ducadaasi ka dhacday. aroorteedii ayuu roobkii qayooday oo cadceeddiina soo baxday. waxaa la yidhi mar buu suufigani la kulmay nabi qadar oo u hibeeyey buuro dahab ah, balse sheekhu wuxuu taas beddelkeeda ka dalbaday karaamo iyo cilmi waafi ah. waan hubaa inay carruurtu sheekadan maqashay, waaba kuwaas xujo la'aan iga runsaday in aan nabi qadar ahay oo iyagoo faraxsan geedka iisu xaluushay. aniga oo nabi isu ekaysiinaya ayaan qur-aan akhriyey. haddana intaan cirka eegay ayaan wiilashay ku idhi, deeqdayda waxaad helaysaan 4 maalin kadib, laakiin ogaada 4taas maalin ka hor haddii aad sheegtiin inaad ila kulanteen waad khasaaraysaan. marka qofna ha u sheegina arrinkaas, ina warsada waxaad jeceshihiin. mid baa hamiyey, waxaan rabaa inaan lahaado geela adduunka ugu badan. waad heli ayaan ku idhi 4 maalin dabadood, waase haddii aadan iska sii sheegin. mid kale ayaa isna yidhi, waxaan rabaa geela iyo gammaanta adduunka ugu badan. isna waan ugu bishaareeyey, waana u digay. kii 3aad ugu da'weynay baa isna yidhi, nabiyo waxaan rabaa geela, ariga, lo'da iyo gammaanta adduunka ugu badan. haah, waxaa kale oon rabaa inaan baalal yeesho. haddana dhammaantood wiilkan ayay ku fikir noqdeen oo waxay iga baryeen xoolo badan iyo baalal ay ku duulaan.
kolkaan u ballan qaadayna waxaan uga warramay in aan hadda ka hor la kulmay sheekh faarax owsame oo adeerkood ah. sheekhu karaamo iyo cilmi uunbuu iga yaboohday. ayaan ku idhi adinkaasa ka caqli badan oo wax fiican sheegtay. nin maararow ah iyo ilmo maanguracani waxba islama waayaani, aniga oo isla mar uun ha kaa tageen ayaan ugu dardaar wariyey i dhegaysta. meeshii aan ka tago waxaa soo fadhiista shayddaan halis ah. haddaba waan idin digayaa ee halkan ha ku soo noqona. haddana orda waad liibaanteeni. wiilashii way iga tageen iyaga oo farxadii beer qaaday, qosol iyo boodbood iska daayay. mid weliba waxa uu ku maqan yahay sidii uu u kala maarayn lahaa hantida faraha badan iyo wuxuu fali doono markuu baal yeesho. aniguna bad kale ayaan dhex dabaashay iyo fikir aan dhalanteed ahayn. ladan baa hertii ii timid iyada oo ku faraxday caafimaadka iga muuqda. ayaan uga warramay wiilashii aan la kulmay. haddana iyada oo qaraacantay ayaan ku idhi gacaliso ha ka welweli. oo maxaan uga welweli waayey? suu kuma sheegayaan. ma welwelayo, waxaan kaashanayaa ladan iyo lugtaas ii fiyow. tima sida saaruqda badeed la moodo in hirar qarsoon lulayaan oo wejiga ka saarnay ayay gadaal isaga rogtay. misena waxay cod qurxoon iigu liilaysay. hal lug iyo ladan lama kaashado, xumo laba kaca lama kaasado, ilmo laba jira lama aamino. tahlu gooyo ah talo laga jecel, anna la yacbaad ku legdoon tahay, anna laabtay lurka kula necab. waa lilaahiye leebka soo ganan iyo liban maqan dhexdooda lama lado. murug awgeed ayuu wejigeeda casuurka ahaa dhabannada ka guduutay. waa gar inay walbahaarta. awalba sheekada waan ku tuurayey. waxaan haddana uga warramay tabtii aan carruurta u sabay. iyada oo weli ilmadii ka tifqayso ayay inta qososhay tiri, ilmaha yaa u sheega baalasha ay kaa sugayaan inaad adugu ku duuli lahayd. goor aan sidaas u diirsanayo uduggeeda ayay ii shubtay caano ay ii waday, iguna tiri faraska ma fuuli kartaa aan caawa baxne. haa gacaliso ayaan ku idhi, ee sidii aan kuu sheegayay ku soo wad. waa tahay nabadgelyo. hayaankii ladan iyo xaydar. bishu waa 14aad, dhulku wada iftiimayo. goortuna waa cawaysin jawigu degan yahay. cirku daruur ma laha oo xidigaa ifkooda ayaa kaabaya dayaxa. waana habeen ay lamin ama isniin soo galayso oo sidaa la rumaysan yahay socdaalku waa abshir. ladan baa agteeda la soo istaagtay faraskii adeerkeed oo heensaysan. wagaradka ayaa u dhuuqsan, waana sango weynan u dhashay, oradna looga haray. bulaale ayaa la yidhaah oo gurdankiisa ayaa dadka iyo dunyaduba ka baygagaan. si taas ka bilicsan ayaa ladan arrinkeedu yahay, oo iyadoo awalba hibad u dhalatay ayay marasho qurxoon isku taagtay. guntiino qurdhaysan oon caawa ka hor la xiran ayay boqor shulub leh dhexdeedii yareed kula dhuujisay. qoortan waxaa ugu tahan kuul carray ah oo dabac laga dhowray, waxaana midabkeedu isdaaran yahay oogadeeda cas, boqorka guduudan, kolayga wambeerka ah ee isaga oo hardhan gosha u suran oo malaha asal gondod lagu caseeyey, iyo jinjimaha dhildhiran ee gacanta cuddoon ugu xiran. waa nimca la ii hibeeyey, waase haddii aan hanto. aniga oo lugtii xanuunayso laakiin dhaqaaqa tahli karo ayaan faraska gurada uga dhacay oo intaan gacalisada gacanta soo qabtay gadaasheeda ku soo fariisiiyey. jaydalkii baan la dhacay, markaas ayuu hortiisa u melmelay. inkastoo aan gaadidu wato, haddana ma awoodno inaan u baxsanno dhankii reer aarre oo halis badan ayaa ku gadaaman. isma miidaamin karo, balse waxaan afka saarnay docday reer abtiga iga xigeen. waxaan hilaadinayaa inaan arki doono dad dhiig ila wadaaga. waagii aan soo qaxay waan ogaa in dadkaygii la laayay, waase laga yaabaa inay badbaadeen dad aan geeri ku tiriyey. kaynaan daran iyo jayfan dardar qabo, waxaan dabaylaha la guurayno ayaan haddiiba ka gudubnay soodintii direed. waxaan galnay dal ay ku kulmaan dagoodiga iyo qabiilo oromo ah. markuu waagu soo guduutay ayaan faraskii ka degnay, misena inta hoggaanka u qabtay ayaan socod aayar ah u taxaabnay. dhulku waa taagag,
buuro iyo duuxooyin aadna uga eg carradii reerkaygu degi jiray. malaha waaba iyadii oo qiirada iyo lablakacay galay. waxay muujinayaan dareen diiqadka, xusuusaha sida dahsoon ii tusayo sooyaalkii dhibka iyo ladnaantaba lahaa ee aan dhulkan kala kulmay. goor aan sidaas baallaha u dhuganayo ayaan ku soo baxnay 2 aqal oo isu muuqda. kiina soo xigay ayaan ku leexnay oo dad hortiisa joogay salaannay. waxay noogu warceliyeen akam oo afka Oromada ku ah iska warrama. markaan gartaybtooda guud ayaan ku idhi nageeya. inaan afkooda si wacan u aqoon bay dareemeen. markaas buu odagii i weydiiyey sabaka ma'ati. aniguna ugu jawaabay saba Soomaali. sabtaydu waa Soomaali. markaan eraydaas isweydaarsanay ayuu guri agtooda afarta igu fiiqay iguna yidhi umani sunqaysani. ciddaas baa dadkaagii ah. waan gartay inuu reerku yahay afaranqalo oo ka mida beelaha bahweynta bareentada. waxaa la sheegaa inuu asalkoodu yahay beesha direed. qaarkoodna way og yihiin inay sabtoodu tahay Soomaali iyo halka ay ka yimaadeen intaba. intaan nabadgelya ku idhi ayaan aqalkii kale u soo gudubnay. dad afkayaga ku hadlayo ayaan la kulannay. waan iswarsannay. waxayna isugu kaaya sheegeen howle oo ah beel ka tirsama dhibaanka galbeed. qoysku waa 9 qof oo ka kooban 2 towl iyo carruurtoodii. malaha weligayo maanan arag dadka filsan kana bidhaan wacan. talow maxay cuni jireen baan isiri. ilmaha iyo odayguba waxay ka siman yihiin madab guud iyo casuur isku laran ah iyo timo bisbis ah. waa midib aanay lahayn dadkii aan arki jiray. markaan si fiican isu warsannay oo ay xaalkeenna ogaadeen ayuu odaygii noogu dardaarwariyey kol haddiiba loo ogaado in faraskii iyo gabadhii lala baxsaday waxaa idin soo daba socdo raacdo fardooley ah. ladan oo isku naxday ayaa ku tiraabtay hadda adeerow maxaan samaynaa. odayga oo magaciisa noogu sheegay geella maaweel ayaa yidhi waxaan idiin wadayaa reero buurta shishadeeda deggan oo markaa nasataan ayaad u sii gudbi doontaa halkii aad u socoteen. adeeroo bilaa faraska raadkiisa la soo qaadee ladan baa sidaas dhahday. geelle maandhay haddii ay sidaas yeelaan waa inay qunyar u socdaan una fiirsadaan halka uu raadku ku dhiganayo. maalmo ayay dhex ku soo jirayaan. waxaase daran in la ogyahay halkaad abbaarteen. aniga lama oga. geelle ha cabsan. waxaan idin geynayaa hobay shiran oo aanay cidi idin arkarin. cabbaar ayaan soconnay. geellana maad buu noogu qosol siinayaa. sidaan sheekadiisu ugu bognay awgeed ayaan socodka tallaabada u gaabiyey. ileen dhadhanka sheekadu waa markaa iska dhex aragto. ee geella wuxuu noo tibaaxay waayihii oo barbaarka ahay in meeshii oo maraba qurux iyo aftahamo lagu murweyn jiray. haddana waxaa ka muuqda codkarnimo oo laga maarmaan u ah cawaysyada uu hasaawuhu ku dhisan yahay. taagta tayada iyo tolwanaagga oo la muujiyo. adduunka xaalkiisu sidaas yahay ayuu geelle gabdhaha laabtooda ku kasban jiray magaca beesha uu ka dhashay oo dhallan wacan iyo dhaqaale badan eebba ku galladay. haatanse arrinku wuu isrogay oo waxay beeshu maraysaa heer aanan guurkooda lagu faanin. haddii ay adkaan jirtay sida lagu helay gabar madhibaan ah maanta meherkooda xoola sidaas lagama dhiibo. siday ahaataba reer maaweel oo ah qoyskii geella ka dhashay oo xoolihii cudur ugu dhammaadeen ayaa geella ku sababtay in loo diiday gabadhii u doonaneed oo cawrala la yidhaahdo. xaydarow 3 mar ayaan gabadhaas la baxsaday oo haddana layga soo dhigay. 2 jeer dagaal xun baan darteed u galay uu dhaawacani ugu gaaray. wuxuu farta igu fiiqay meel garabkiisa ah oo uu waran ka taraaray. amarka alle intuu warkaba inoo waday ayaan sheedda uga jeednay 2 wiil oo aqalkii aan ka nimid noo dib marayo. markaas buu yidhi raggaas bay cawrala ii dhashay eebbuu hayga qaadeen. waxaan soo gaarnay cidihii uu inoo waday oo iyaguna isla beesha geella ah. meeshu waa hobay godan oo ay buuro kuraan ah iyo geedayooc himir iyo qarar u badan ku teedsan yihiin. waa meel lama arkaan iyo lama galaan ah. qoysku waa nin iyo afadiis. ninka magaciisu waa colow. isaga oo la moodo in loo keena marti uu waayo badan sugayay ayuu xaggii aqalka noola saan qaaday. 2 tallaab kolkaan jaanta rognay ayay ladan si hoose iigu xanwarrantay. midhaa dad xigaaladiisa ah
ayuu noo maleeyaa malahaas ay gabadhu qabtay wuxuu buray markuu colow nagu yidhi dhallinyaroy waa idin qolama waxaan uga warrannay qabiilkeenna iyo danteenna labadaba kadibna hore ayaan u wada galnay aqal si wacan loo gingimay markaan salka wada dhignay ayuu geelle igu yidhi oo meeshuu bahalku kaga qaniinay way raysata maxaad u tidhi sawtan lugtu dhiigayso waan eegay mise waaba runtiisu oo dhiig baa ka tifqaya waxaase mahad eebba ah inaan la joogo qabiilkii dalka ugu sarreeyey marka laga hadlayo cilmiga dawada suleeqo oo xaaska colow ah ayaa nabarkii fiirisay misena su'aalo badan bay fayadayda iga warsatay markay ogaatay maskay cunay kan uu yahay kadib ayay tidhi waxaa lagugu baxnaaninayaa dacarfaal uuma bixin iyo dabarjare dacarfaalku waa caloosha oo la nadiifiyo uuma bixintuna waa oogada oo dhididiis lagu nadiifiyo intaas garannay waxaan sawarsannay dabarjaruhu waxa uu yahay waa dheecaanka 5 geed oo la isku daray ayay tidhi waa abaayada maska iyo xumihii kale ayuu dhiiggaada ka saarayaa baxnaanintaas oo barya qaadan karta darteed ayaan reerkii ku nagaanay maalintii xigtay ayuu colow nagu wargeliyey inuu qabanayo dhul ay masaafadiisu 2 aqoolood tahay halkaas buu nooga tegay isaga oo reer gurguro ah u wada ari dago ah dharaartaas dumarku ariga ayay wada raaceen anigana maqasha ayaa laygaga tegay se goor barqadii ah ayay ladan ii soo noqotay iyada oo aan si aan jeclahay tallaabada iila soo dhowaanaysa ayay igu tidhi suleeqa isoo dirtay oo igu tidhi orodow xaydar u sheeg inaan caano ugu dhaafnay xero ariga jabadkeeda dhankii xerada ayaan isula saan qaadnay sheekadu nagama kala go'do oo marba qof ayaa hadlaya kan kalena wuu dhegaysanayaa tiiyoo hadalka murti iyo maaso lagu iidaamayo annaga oo sidaas geeraarro xujo ah haddana aan codka u qurxinayno iswidaarsanayno ayay ladan igu tidhi xaydarow haddii reer abtiga noo coodaan oo guur iyo guriba nagu taakulaan ma iyagaan la joogi mise waxaan u guuri doonaa dhulkii mariixaan ee walaalaha u qaxeen aniga arrinkaas hadda lama qorshayn karo talana way naga dhexaysaa walaal talada adigaa leh ee ma waxay kula tahay inaan ka war dhowrno sida ay reer abtiga noo maamuusaan ladanay taasina meesha kama marna waxaa laga yaabaa in xigtadaydu ka dhaartaan inaan ka tago kol haddii aan ku soo biiray ladan way dhici kartaa walaalay haddii ay taasu dhacdo ma diidi karayo reer arrase waan booqanayaa oo ma moogaan karo adiguna sidoo kale ayaad reerkaaga u booqan doontaa eray walba eray ayuu noo gudbiyey ilaa aan dib ugu laabannay dooddii halkudhiggeedu ahaa sidee ciddayda loo xaalmarin doonaa waa weer baarqabad ugu noqotay waxaan se kalsoonideeda ku dhisaa inaan arrintaas u marayo jid kasta oo suurtagal ah deedna dhaar baan ku xoojiyaa waana sida alle uu og yahay baxnaanadii waan dhammaystay caafimaadka aan dareemayna aad baan isu mahadinayaa sidaas ha ahaatee socdaal dheer baan u kacaynaa geelle ayaa agteenna soo qotomiyey qombahigaagan oo ay subag iyo hilib shiilan afka hayaan iguna yidhi haddii arrinkiinnu sidaan ka duwanaan lahaa waxaan kuu rari lahaa 2 rati balse dad faras ku baxsanaya ayaa tihin aniga oo huba inuu run sheegayo ayaan hadiyaddii ka guddoomay ogaadaye gobannimo u dhalasho ee ma aha waxa awood iyo tirabadni lagu kasbado colow oo dhulyaqaan ah ayaa isna tilmaam aan lagu amban na siiyey waxaanse ka walwalay dhulka dherarkiisa oo 10 maalmood loo soconayo marka aan faras wadanno intaas waxaa dheer cabsi daran oo uu geelli arrigaas iiga sheegay waxaas waan ka qarinayaa ladan faraskii ayaan caynaanka qabsaday deedna salaam baan u taagay colow geelle iyo 2 wiil oo uu geela dhalay oo markaas isaga la yimid goortu waa aroor geyigu weli qabow yahay faraskuna waa caabboon yahay oo sayax waa beri iyo doog ayuu isku durduurtay kiiyoo aanan maalmo badan la badrin sidaas baan hayaanka inaantiisu fog tahay u halabsannay maalintaas waxaan faraska mar ka degno si aan u dukanno una nasanno marna aan hayaankeenna sii wadanno ayuu gabalkii gaabtay ladan baa igu tiri xaydarow farankii sangaha ayuu dhabarku ila xanuunayaaye armaan meelahan ku nagaanaa taniyo berri sidaas ayaan sangihii uga degnay oo intaan qoofala meel agtiisa ah
iska fariisanay. Dhulku waa cidla bini'aadanka fog yahay. Waxaan maqalno waa galowga iyo yeerta dugaagga oo kaliya iyo shanqarta geedaha ay dabayshu ruxayso siiba cambuulaha oo la moodo balaayo gadaal ka soo foorinaysa. taasi ha jirtee kalsooni ayaan ku qabnaa inaanu jirin colaadkeenna ku soo jooga. ladanay cisho ayaan dukanayaa ee sahayda noo fur. waa tahay gacaliye markaan waajibkayga gutay oo aan wada xareedanay ayaan jiif isu qabanqaabinay. ladan igama fogaan ee meel 10 tallaabo ii jirta ayay seexatay. waayo way cabsanaysaa. waa qowna bari oo nabadbaadi. intaan ku ducaysanay ayuu qof waliba go'iisii hoosta ka galay. maadaama aan daalba aan qabnay habeenkaas madaxa kor uma qaadin ilaa ay naga kicisay cadceedda aroornimo. halkaas ayaan ka sii ambaqaannay oo aan qaboonaha hore ku jarmaannay. maalinkaas gelinkii hore oo dhan wuxuu sanguhu nala awaareeyo goor harkii ah ayuu xiiqay. markaas baan ka degnay. qorraxda ayaa naga tambadisay maadaama uu xilligu ahay qorax dheere kaliishu daran tahay oo ay hanfida iyo nohda dhulka soo tufayo isbiirsadeen. dhididka oo guudka iyo gundaha naqooyey ayaan saninay saxan soxo iyo gufaaco xareedeed oo naga soo gashay dhanka aan u soconno. intaan mar labaad sangaha fuulnay ayaan jaydalka la dhacay oo la dhacay jeer aan ku soo baxnay bannaan weyn oo doog iyo cagaar maahane aanay geedo kale ku ool. duurjoog kale ayni ah ayaa daaqayso sida biciidka, siigga, cawlaha, garanuugta, sagaarada, adaafiirka, farowga iyo kuwo kale oo barwaaqa ku nool ah. waxaan u bognay meesha quruxdeeda oo waa indha daraandar iyo ashqaraar. faraskii ayaan ka waraabiyey balli xareed ah meelna waan ku qoofalay aan caws iyo nagaar ugu xishay. intaas kadib ayaan soo jalleecay ladan oo intay biyihii cabtay haddana madaxa ku qoysatay. timo yaleex ah oo la qooyey. maxaad ka filaysay? intaan ku qoslay ayaan erayo kaftan ah ku tuuray. ladanay aawa guudkii badnaay miyaad iska xiirtay? ladan xaydarow midhaa gorayo qoyday ayaan kuula ekaaday. aniga maya walaalle ee waa iga kaftan. hadal badan islama sii qaadqaadin ee waxaan si wada jira ugu soo dhaawanay rabtii uu qalabku noo yiil. intaan isgarab soconnay ayaan dhinacayga ka arkay geedgaab isku shareeran kana mid yihiin askax, garuunjo, aneexo iyo damanyood wada bislaaday. waan u leexday oo intaan faraqa ka soo buuxiyey midho dhumuc ah ayaan haddana soo gaaray ladan oo 2 go' dhulka noogu gugushay. yaaba raashin kale u baahan. ilaah baa gacan hodan ah noo fidiyey dhirtiisana naga soorayey. dhacdiid ayaan u seexannay annaga oo daawanayna quruxda nagu xeeran iyo cawska oo xayga fiidda qurxooni bilayo. ubaxa biraha iyo addimacasaha ay dabayshu walwaalayso ayaa la moodaa hirar badweyn ka soo rogmanaya. dhulka qurxani qalbiga u roonaa. kadib markaan aragti turaal leh ku dheehday ayaan gacalisadeeda ku idhi ladanay waxaan malaynayaa in dhulka naga horreeya oo dhan uu sidan u qurxan yahay. ladan weligay ma aan arag dhul sidaan ah. midhaa reerkii xoolo u daaqaani ma xantiiro. aniga eebbow dhulka reer abtigayna sidaan uu noqdaa. ladan haddaan dhulka reer abtigaa degno waa inaan guga ugu horreeyo soo booqannaa reerkaygii iyo walaalaha. aniga taas waa xaq. ballanteennii hore ayaana sidaa ahayd. ladan mise mariixaan ayaan la degaynaa. aniga ladanay nin taawil leh tolkiis 2 jeer kama tasoobo. ladan inaa saas dhihi waan ogaa. eeg shimbirkaas quruxdiisa. aniga wuxuu eg yahay nabadgaalkii aan arki jirnay. la soco qaybta 7.